wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ayaa sheegtay in la xakameeyay qorshe ballaaran ay al-shabaab ku doonayeen inay ku qabsadaan dhul badan. wasaaradda oo soo xiganaysa taliyaha ciidamada Mareykanka ee Africom General Stephen Townsend ayaa sheegtay inay u muuqato in Itoobiyaanka ay si xoogan uga hortageen isla markaana uu guuleysan dagaalka. General Stephen Townsend wuxuu ka digay in al-shabaab ay qorsheynayeen in weeraro fara badan ay ka geystaan dowlad deegaanka Soomaalida sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya oo shalay baahisay warbixinteeda toddobaadlaha ah. isbuucan dhexdiisa ayay xubno ka tirsan kooxdan iyo ciidanka liyu booliska ku dagaalameen tuulada Lasqurun oo u dhow degmada Feerfeer. markii dambe waxaa dagaalka qayb ka noqday militariga Itoobiya. labada dhinac waxay sheegteen inuu mid walba khasaare gaarsiiyay midka kale. dagaalkan cusub ayaa ku soo beegmaya iyadoo maalmihii la soo dhaafay uu socday dagaal u dhaxeeya liyu boolis iyo al-shabaab kaasoo ka dhacay deegaanka Caato ee xuduudda gobolka Bakool u la wadaago Itoobiya.